عادي هذا نشوف دويننا ماموري وانا كم قاية ومامور كحوين كدوك سكينا كدوين أرض الفصل كسديدات وابي طبعا كانوا فرديا وابي طبعا أرضي ويان مرة كبدي مرة تاس بيلا حاسيو مركا يقولوا يظروفها كل الشراء هذا حاجة دوك سك هذا أنا قلت حانات كي واتي كوف النتيجة واحد عين لمبردي waxba naga khaldamay lambardii systemkii taxanaadka arday lambarka markii khaladaad baa naga jira marka hadii halka wadno tixgelinaysan wixii aanu dee bedel soo codsanayo wixii lambarkooda ku xamaday halka hadii la kaliyo waan isku soo dhaweynaynaa degmadan Qoryaale dugsigan hoose dhexe Qoryaale halkan waxa fadhiya ardaydii fasalka 8aad ee sugaysay imtixaankii shahaadiga ah tiradooduna waxa weeye 24 habluhu waxa weeye 12 nimadan waa 13 waana diyaarsan yihiin waxaanu diyaarsan imtixaanka inay galaan ku guuleystaan waxyaalo baa jira aanu hadii jeeraale aanu yar cabatina laba buug baa ka maqan arday hadii jeeraale laba buug oo diiniga iyo carabiga labadaas oo xitaa ka maqan hadii waa laga waayay maktabadaha burcowan ku weyn labada buug way ka maqan yihiin sida kale laakiin buugtu waa caadi waxbarashaduna waa caadi marka sida kale waxaan dadka la qabno mooyaane wixii kale waa caadi weeye waana diyaar baan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh maanta ay taariikhdu tahay 13 bishii saddexaad waxaa halkan ugu soo booqday gudoomiyihii xafiiska imtixaanaadka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Daawud Axmed Faarax iyo wafdi uu hogaaminayo oo uu ka mid yahay gudoomiyihii waxbarashada gobolka Togdheer xafiiska imtixaanaadka gobolka iyo wafdi kale oo la socota aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa degmada Qoryaale halkan waxa weeye dugsigii degmada ee caasimadda uu ahaa inta xukumo warbixin guud haddaan idinka siiyo marka hore waxaan wax la qabnaa dadka abaaraha jira iyo kuleylka jira wax gaar ah ma qabno alxamdulillah dalkaanu la midnahay midda labaad waxbarashadu si hufan oo wanaagsan bay u socotaa degmada guud ahaan inta dugsi ee ay ka baxayo waxay leedahay 4 dugsi oo sanadkii hore way ka badnaan jireen afarta dugsi ee hoose dhexe ay ka baxayaan waxa ka magaalo yar Qoryaale Warcibraan iyo Shashcadi sankadari hal dugsi weeye oo degmada Qoryaale ku yaala 24 arday baa ka baxaya sanadkan hal gabadha iyo 23 wiil waxoogaa adigu hoos u dhac uu nagu yimi waxaana sababay ardayda guud ee sanad kasta soo bixi jirtay ama 80 ama 85 bay noqon jireen sanadka afarta dugsi aan sheegay aydarku waa 69 shan shacade min magaalo yar waxaana sababay waxa jiri jirtay arday non formal education ka ardayda abaartii hore iyo tan marka la isu geeyay meeshii way ka baxeen maadaama dadku ay guurayaan sida kalena aad iyo aad baan u wacanahay aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa aad iyo aad baan idin salaamayna dhammaan wafdina uu hogaaminayo gudoomiyaha xarunta imtixaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland Daawud Axmed Faarax farxad bay noo tahay inaad maanta noo timaadid degmada Qoryaale noogu timaadid waliba aad iskuulkayga iyo galaaskayga aad nala soo fadhiisato annaga farxad noo gaaro weeyaan maanta aad iyo aad baan ku jecelnahay saxabka hal mar loo garaaco waayahay inta ka bacdi wad garanaysaa gudoomiyo wadanka waxa ka jira abaaraha awgeed waxa dhacday qarba baan ugu dhacda garanaysaa inaan anagoo xoolayo iyo dadku waxbay leeyihiin ma ogtahay dadna ardayda badankooda noloshooda xoolaha ku tiirsantaa ardayda qaar baa maalin xoolo arooriya qaar baa wax kasta qabta saas xiisadaha qaar badan ku dhaafaan ma ogtahay marka gudoomiye anagoo taa ka codsanayna imtixaanka noo soo fududeyso aan ka codsanayna كان أنا وأقوم كلا كمان نالهاي ندى برا برشلونة بانو قرك على اسم بانو كارثة هذا مساعد ما أنت هاي تعرف هاي استحيل طبعا كبيشي صدحات لبضة كونية لبيا لباتن حنا هذا قفر حسنا هاينا نتشوفنه تجمد قرية عليه وكي له سكول كيو هنا بوردنج كها سكندري كها يدوكسي كها صدح هذا رديدي شيء كان الله فرينه كنتي وشيدة السفر كيجان واحد دارنا يدون لبارهن guud ahaan inaan ugu kurgalo xaaladda waxbarasho iyo qodobka kale oo ah ardayda u fadhiisanaysa imtixaanaadka shahaadiga ah bal saameynta ay abaarta ku yeelatay ayaan u soconaa gudoomiyuhu wiiganba wuxuu inoola joogay gobolka Togdheer magaalada Burco waxaanu ku soconaa maanta inta ay fadhiyaan xuduudka oo dhan ilaa gobolka oo dhan baan soo marnaynaa ayaamaha soo socda hadii la yiraahdo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka
oo runtii dadaal badan iyo halgan badan ugu jira sidii uu reer togdheer iyo gobollada barigaba ula qaybsan lahaa duruufaha qallafsan ee abaarta ah iyadoo howlo badan u yaalin maanta ayuu halkaa inoogu yimi dhaqdhaqaaqiisu inta badan wuu koobnaayo caasimaduhu buu booqan jiray laakiin markii xaaladdan abaarta soo korodhay waxa uu u soo hub qaatay sidii uu geed kasta isu hoos taagi lahaa saacaddan u shaqaynayna waad arkaysaan waa 3 galabnimo ilaa caawana guuragal baanu kusii jiraynaa marka runtii aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa ardaydan maanta qoryaalana fursad qaaliya bay idiin tahay haddii gudoomiye xafiiska imtixaanaadka qaranku halkaa idinku yimi oo aad afkiina wixii aad su-aalo qabteenba halkaa aad ka bogateen waxaan rajaynayaa safarkan warbixinta ka soo baxdana in xafiisku ku maal qaybsan doono waayo arday fara badan baa jirta oo iskuuladii ka xidhmeen oo eedheedh leh waxaa jirta arday fara badan oo xoolo raacay oo iskuulkii daroob out ka noqday waxaanu raacdadooda ku joognaa markaa ardayda noocaas ee saydhsantay mas-uuliyad sidii xafiis ahaan qorshe looga yeelan lahaa ee ardayda faraha badan leh ee abaaruhu saameeyeen looga daba tegi lahaa xogtoodana loo soo heli lahaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa gudoomiyaha waxbarashada degmada maamulaha dugsiga sidoo kale waxaa iyaduna safarkayga qayb ka ah hay-adda keer oo runtii tacab badan iyo dadaal badan gelisay 10kii sano ugu dambeeyey gobolka togdheer wiigan ugu dambeeyeyna idiin keentay biyihii markaa safarka qayb ay iyaguna ka yihiin waxay daba socdaanoo safarkayga qayb ka ah bal meel kastoo biyaha la geeyey iyo biyaha nadaafadooda iyo qualitigooda iyo meelaha aan la geynba biyuhu weli way socdaan biyo dhaamintu markaa aad iyo aad baan hay-addaasna ugu mahadnaqayaa oo runtii xag kasta tacliinta la garab taagan hil iyo hooba aad iyo aad bay umahadsantihiin marka koowaad ilaahay baa mahad leh mar labaad waxaan runtii u mahadnaqayaa mas-uuliyiinta gobolka guud ahaan gaar ahaan qoryaale oo in badan kusoo noqnoqota magaceeda kusoo noqda xafiiska imtixaanaadka oo muddo dheerba ka qayb qaadanaysay imtixaanaadka qaranka inay galaan sare iyo dhaxaba waana runtii arday dadaal badan markaa taasi waxaan yacni ugu hambalyeynayaa dee kolley mas-uuliyiinta siiba guddoomiyaha waxbarashada degmada iyo macalimiinta iyo maamulayaasha runtii marka waxa weeye taa horta waa idinku hambalyeynayaa iminka se tiradu way sii yaraanaysaa siduu guddoomiyuhu ka dhawaajiyo horta ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu naga soo jabiyo abaarta oo ilaahay naxariistiisii inoola soo degdego wax kaloo biyo la dhaamiye iyo wax lainoo soo gurmada waxba tari maayo gurmadka ilaahay unbayna qaboojin karaa runtii taasaanan baryaynaa ilaahay weli waxaan jeclahay marka aad tukanaysaan sujuudsan yahay in ilaahay la baryo runtii waxa weeye waa meel waxbarashada lagaga dadaalo waxaan aad iyo aad ugu farxayeen inantaas xamda cabdilaahina runtii una raali gelisay sida u hadlaysay yacni ardaygu waxa weeye waa mustaqbalkeegu uu cad yahay ilaahay waxaan ka baryaynaa in meel fiican mariyo waxa loo baahanya waxa fasaaxadda waxay ka mid tahay dee aqoontay ka mid tahay moogta waxaana aan u baahannahay mid unbaan rabaa inay kala dardaarmo weliba sekandariyaasha u badan eegashada waxaan la idhaha eegashada Soomaaliya araga ama qishka waa aafo qaran waxa uu qofka way baabiisaa eeg waa qof naftiisa khiyaameynaya tahay waxaana garanay marka khiyaamayso sidiisana ma qashana falaysa minna abu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam diin ahaana waa xaaraan waxa weeye xataa waxaad ku hesho shahaadaad ku qaadato lacagtaad ku qaadataa jirkaaga ilmahaaga wuxuu dhow way xaaraantinimoobayaan waxaan lahayn baad qaadatay dee marka waxa weeye inaad idinku jaanis fiican baad haystaan magaalooyinka wax badan baa mashquulinaya laakiin waxaan idinkula talinayaa inaad taas aanay idiin soo gudbin waxaa laga yaabaa in macallimiinta qaar waxaa jira waxaa kula taliya ardayda dee macallin hagaagsan macallinkaasi maaha in waqtiga imtixaanka inta guri la fadhiistaa uu idhaahdo ii soo sawira imtixaanka aniga idinka soo shaqaynaye dee macallinkan weligii kulama soconayo berrito markaad secondary-ga geshid jaamacad baa kugu xigta waxa weeye adiga iyo waxa isku imanaya nin professor oo idaan isgaranayn oo hadduu rabo caddaana hadduu rabo madowga hadduu rabo somalilandara meeshuu jaamacadda doontaa tegi kartaa wixii haddaanad wax aqoon maskaxdaada ku jirta ahayn dee ma wadi kartid sideeda toobalcaaradu de carabtu waxay ku mahmaadaa toobalcaaro ma qariya jirkaaga iyo ku mahmaadaa carabtu waa la mid tacliinta eeg adugu aad leedahay waxay ka qiimo badan tahay mobil lagugu soo diray ogow weligaa taa maskaxda ku hay mobil lagaagaga soo shaqeeyey ood keentay anad garanayno de waxaan aad qorqortay ku jiray meesha
waxa ka khayr badan dhiidan adigu gacantaada ku keensatay eed ka shaqaysay eed dhii keentay dhii intaa dhiidaad ku keentay waa aqoon kugu jirta aad may fahanteen halkaa waxaad markaa ku dadaashaan weligiin iyo allihiin iyaan cilmi laydinka dhigin hebla ama hebel eebuu keenay oo waa loo qisho macallin ay maabti yihiin ama macallin ay qaraabo yihiin ama macallin hebel ayaa looga soo shaqeeyey waana idin sheegaya adduuniya aakhiraba waa xaaraan marka in arintaasan waxaan rabnaa magaalooyinku imika way ku fasaadeen waxa weeye marka alla marka interview la qaado waxaad arkaysaa jaamacadaha oo kale ardaygii way noo soo sheegaan ardaygii aad shahaada eedaa sitay interview ku dhacay ku sii sitay ama dhii sitay baa yaa gudbaya sababtu waa maxay dee eedaasi waxay eedana lahayn isagu oo de anagu waxa qofka kolka imtixaankaaga aanu saxayna waxaad keensato waanu saxaynaa dee ma ogin anagu in lagaaga soo shaqeeyadu ka shaqaysay marka anagu waxaaga dee adaa iska leh laakiin de waxa caddaynaya marka dambe meel kale aad u gudubto ayaa la ogaanaya adiga shahaadan inaan islahayn cilmiga shahaadada eedan ku qoran iyo marka adigu wax lagu weydiiyo waa dee aad kala boodaysaan isma lahaanaysaan marka waxaan runtii ka codsanayaa waa qoryaale waxyaalahan tuulooyinka kale inta badan aad uga lamaan hadal idinka waxaan idin kala hadlayaa waa meel sansaar aqooneed leh mar haddaad magaalada yar ee fiican ee secondarygii leh dugsigii dhexe leh dadka aqoon-yahanadu joogaan waxaa loo baahan yahay waa mustaqbal fiican marka mustaqbalkiinu inuuna eeg inxiraaf auna ku dhicin siduu kuu soo galay maalkaagan maxalaal buu ahaa maxaaraan buu ahaa aqoontu waa la mid waa lagu weydiinaya waa in aqoontan aad ku shaqaysanaysaa tahay aqoon xalaala oo wax adigu aada leedahay ah marka intaasaan rabaa anigu inaan kula dardaarmo runtii aad baan ugu faraxnaa waan jecel lahay inay tuulooyinka aqoontu sida qoryaalo oo kale noqoto runtii oo inta badan dhibka ka jira waxa weeye tuulooyinka eeyarkuun baa laga markaasay hablihii ka harayaan marka inantii eyr ka baxdo tuuladii aan secondary lahayn meel ay tagta male laakiin waad nasiib badantii secondarygii baa idiin dhisan runtii waxaa idiin dhisan dugsiyadii dhexe kii hoose marka waa wax ilaahay lagu mahadiyo ha jaamacaddu bay ka dhiman taana ilaahay idankii iyaduna waa imanaysaa waayo waxaan waa isku xidhiirsan yihiin kolkuu secondarygu bato waa khasab jaamacaddiina in la dhagax dhigo oo ay timaado laakiin waxaan igula talinayaa aqoontiinu tu dhuux laha ahaato weligiin iyo allihiin jiitinkaa iska ilaaliya waa khiyaamona meelna gaarsiin mayso wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu